Qarniyo ka hor, dhulkii Rome waxaa ka talin jiray boqor aad u dulmi badan oo cadaalad darro lagu yaqaanay. Dadku cabsi darteed xitaa ma u dhowaan jirin qasrigiisa. Wuxuu hantida dalka u isticmaali jiray sidii wax uu isaga gaar u leeyahay. Waxba kama siin jirin dadka masaakiinta ah. Dadka deganaa boqortooyadiisa waxay ku noolaayeen saboolnimo iyo baahi. Xitaa laba waqti oo cunto ah ma heli jirin. Laakiin boqoradda, xaaska boqorka, waxay ahayd haweeney naxariis badan oo wanaagsan. Waxay si qarsoodi ah ugu murugoon jirtay dulmiga oo boqorku dadka ku hayo. Maalin maalmaha ka mid ah, boqorku wuxuu aaday ugaarsasho. Boqoraddan waxay fadhiday daaqadda qasriga oo ay dibadda ka daawanaysay. Markaasaa nin faqiir ah oo duq ah u yimid, wuuna qayliyey isagoo leh, ma jiraa qof Ilaahay dartiis wax u sadaqayn kara? Boqoraddii aad bay ula yaabtay, waxayna istiri, ninkan waa qariib ama ajnabi, maxaa yeelay dadka dalka kuma dhiiran karaan inay qasriga ag yimaadaan. Markay hoos u fiirisay, waxay aragtay faqiir da' ah oo hoos taagan. Waxay isweydiisay, maxaa Ilaahay dartiis loo bixin karaa? Kadib waxay madaxeeda ka bixisay taajkii boqortooyada, ay ku riday bacda faqiirka. Faqiirkii aad buu ula yaabay taajka, wuxuuna eegay kor oo arkay boqoradda oo weli daaqadda eegaysa. Wuxuu ugu duceeyey si deggan kadibna wuu tagay. Laakiin ninkan faqiirka ah ee u yimid wuxuu dhab ahaantii ahaa boqor ka taliya boqortooyo daris la ah boqortooyada Rome. Wuxuu faqiir isaga soo dhigay si uu ugu fiirsado dhibta ay dadku ka sheeganayaan boqorka Rome. Maadaama uu boqor ka yahay waddanka deriska, wuxuu dareemay mas'uuliyad iyo inuu iskiis u arko xaaladda dhabta ah oo fariin digniin ah u diro boqorka dulmiga badan si uu dadka uga daayo dhibka. Boqoraddii waxay siisay taajka iyadoon ogeyn ninkan boqor inuu yahay. Laakiin markii dambe waxay ka baqday in marka boqorkeeda dulmiga badan uu soo laabto, uuna la yaabo in taajkii madax u saarnaa uu maqan yahay, taasina ay dhib keeni doonto. Markaasay bilowday inay walaac dareento. Markii boqorkii dulmiga badnaa ugaarsiga ka soo laabtay, wuxuu arkay boqoradda oo murugo wejigeeda ka muuqato. Wuxuu weydiiyey sababta, balse way ka meermeertay jawaabta. Maalmo ayaa sidaas lagu jiray iyadoo boqorku waxba ka ogeyn arrinta. Ugu dambeyn, safiir uu soo diray boqorkii deriska ahaa ayaa yimid Rome, isagoo wata fariintii boqorkiisa wanaagsanaa. Markii boqorka dulmiga badan maqlay warkaas, wuxuu amray in la furo maxkamaddii boqortooyada si safiirka halkaas loogu dhageysto. Wuxuu kaloo wargeliyey wasiirkiisa inay safiirka halkaas ku casuumi doonaan. Maalintii xigtay maxkamaddii boqortooyada ayaa la furay, wuxuuna boqorka boqoraddu la socodsiiyey inay diyaargarowdo si ay isaga u raacdo. Waxay xiratay dharkeeda boqortooyada waxayna raacday boqorka, iyada oo weli dareemaysa cabsi sababtan ay tahay taajkeeda maqan. Markii boqorkii dulmiga badnaa arkay in boqoradda aysan taaj wadan, wuxuu istaagay si lama filaan ah, sababtoo ah in boqoradda aysan taaj xirnayn ay timaado maxkamadda boqortooyada waxay ahayd jebinta xeerka boqortooyada. Wuxuu weydiiyey, taajka xagee buu maray? Markaasaa boqoraddu cabsi weyn dareentay, waxayna u sheegtay runta iyo inay siisay faqiirka. Markuu maqlay warkaas, boqorkii aad buu u carooday, wuxuuna boqoradda isla markiiba amar ku bixiyey in laga saaro qasriga, iyada oo weli bala jiidayo. Wuxuu si bahalnimo leh uga eryay qasriga. Kadibna wuxuu aaday maxkamaddii boqortooyada, halkaas oo wejigiisa caro ka muuqatay. Dhammaan saraakiishii maxkamadda way naxeen markay arkeen sida uu u caraysan yahay. Wuxuu u sheegay wasiirkiisa in safiirka dalka deriska ah la keeno. Safiirkii waxaa la keenay maxkamadda. Wuxuu halkaas ka akhriyay fariin uu u soo dhiibay boqorkiisa naxariista badan. Laakiin markuu boqorkii dulmiga badnaa dhageystay fariintaas, aad buu u xanaaqay. Wuxuuna u arkay fariintaas mid aflagaado ah. Wuxuu safiirkii si sharaf dhac ah uga saaray maxkamadda. Safiirkii markuu baxay, wuxuu arkay xaaladaha murugada leh ee dalka. Wuxuuna u laabtay dalkiisii, isagoo warbixin buuxda siiyey boqorkiisa naxariista badan. Boqorkii wanaagsanaa markuu maqlay in boqoradda laga saaray qasriga, sababtan ay tahay in nin faqiir ah ay taajkeedii siisay, aad buu u murugooday. Wuxuu yidhi, boqoraddaas naxariista badan waxaa loo dulmiyey oo loo eryay aniga daraaday. Wuxuu si degdeg ah ciidankiisa ugu diray Rome si ay u raadiyaan una soo celiyaan boqoradda si sharaf iyo ixtiraam leh. Laakiin inkastoo ay muddo raadinayeen, ciidamadu way ku guuldareysteen in ay helaan. Ugu dambeyn, boqorkii naxariista badnaa laftiisa ayaa fuulay faraskiisa, wuxuuna si toos ah ugu baxay safar uu ku raadinayo boqoraddii la dulmiyey. Boqorkii naxariista badnaa wuxuu ugu dambeyn helay boqoraddii dulmiga lagu eryay,
iyadoo joogta kayn, waxayna xirneyd dhar duug ah oo jeexan. Markii uu arkay, isla markiiba wuu garan waayey, laakiin markii dambe ayuu fahmay. Wuxuuna yidhi, gabadhayda iga raali noqo, anigaa sabab u ah inaad la kulanto maalinkan murugada leh. Boqoraddii naxariista badneed aad bay ula yaabtay. Markaasaa boqorkii eegay iyadoo la yaaban oo yidhi, gabadhayda, aniga ahaa faqiirkii aad taajka siisay. Anigu waxaan ahay boqorka waddanka deriska ah. Markii aan maqlay dulmiga oo boqorkaaga dadka ku hayo, waxaan go'aansaday inaan faqiir iska soo dhigo, oon xaaladaha dadka si toos ah u arko. Markay tan maqashay, boqoraddii waxay dareentay xasillooni iyo farxad. Waxayna raacday boqorkaas wanaagsan si ay ula aado waddankiisa. Boqorkaas oon lahayn carruur, wuxuu boqoraddii u aqbalay inay tahay gabadhiisa, maadaama uu gaboobay. Wuxuu xilkii boqortooyada iyo taajkii siiyey iyada, isagana wuxuu iska watay cibaadadiisa iyo xusuusta Alle. Dhinaca kale, dalka Room wuxuu galay jahwareer. Dadkii aad bay uga daaleen dulmiga boqorka, markaasaa dadku kacdoon sameeyeen. Ugu dambayn, boqorkii dulmiga badnaa wuu ka cararay boqortooyada si uu naftiisa u badbaadiyo. Kacdoonkii kadib, mid ka mid ah wasiirada ayaa si ku meel gaar ah u maamulay boqortooyada. Wax yar kadib, markii uu ogaaday in boqoraddii naxariista badnayd ay hadda boqorad ka noqotay dalka deriska ah, wuxuu u diray fariin isagoo weydiisanaya inay dib u timaado oo dalkii hore ee Room dib u maamusho. Markii wasiirkii u soo jeediyey boqoraddii naxariista badnayd inay xilka boqortooyada Room ay iyadu la wareegto, waxay aqbashay codsigaas, waxayna dalkaas ku darsatay boqortooyadeeda. Boqoradda waxay sadaqo u bixin jirtay si joogto ah, iyada oo si shakhsi ah ugu qaybin jirtay masaakiinta iyo faqiiriinta. Maalin maalmaha ka mid ah, markay sadaqo bixinaysay, si lama filaan ah ayay la yaab ula kulantay. Horteeda waxaa soo istaagay nin aad u liita oo faqiir ah oo labiskiisu duugoobay. Laakiin markay si fiican ugu fiirsatay, waxay garatay inuu yahay ninkeedii hore, boqorkii dulmiga badnaa ee Room. Ninkii oo hadda ah faqiir, wuu garan waayey iyada, sababtoo ah wejigeedu wuxuu ku daboolnaa indho shareer ama niqaab. Markuu gacanta fidiyey si uu sadaqo u helo, si degdeg ah ayay gacanteeda ula laabatay, taasoo murugo weyn ku keentay boqorkii hore. Wuxuu ahaa nin dhaxan iyo gaajo la ildaran, oo maalmo badan ku wareegayay waddooyinka isagoo derbi jiif ah. Markuu baxay isagoo niyad jabsan, askartii boqoradda ayaa qabtay, waxayna geeyeen meel oo dhar wanaagsan ayay u keeneen. Kadibna wuu maydhay, dharkii ayuu iska beddelay. Markaasay askartu cunto hor dhigeen. Aad buu ula yaabay naxariistaas oo is weydiiyey, maxay iigu samaynayaan wanaaggan oo dhan? Ma waxay garteen inaan ahay boqorkii Room? Markii uu cuntada dhammeeyey, waxay askartu u kaxeeyeen maxkamadda boqortooyada. Markuu halkaas tagay, wuxuu arkay boqoradda oo ku fadhida carshiga. Wuxuu si toos ah u gartay in ay iyadu tahay xaaskiisii hore. Madaxa ayuu hoos u dhigay, wuxuuna soo xasuustay dhammaan dulmigii iyo dembiyadii uu sameeyey. Wuxuu si daacadnimo leh uga codsaday cafis, isagoo ku sugan dadkii maxkamadda joogay hortooda. Boqoraddii naxariista badnayd waxay u cafisay si qalbi furan. Boqorkii hore ee dulmiga badnaa, markuu la kulmay dhibaatada iyo baahida, wuxuu si dhab ah u fahmay in dulmiga lagu hayo masaakiinta uu yahay dembi weyn. Wuxuu qalbi daacad uga toobad keenay dembiyadiisii hore. Boqoraddii naxariista badnayd waxay si weyn oo sharaf leh dib ugu celisay carshigii boqortooyada, iyadoo tiri, boqorow, Allah ugu mahadnaq in uu kugu hanuuniyey waddada toosan. Waxaan kaa rajaynayaa inaad hadda wixii ka dambeeya si daacad ah ugu adeegto dadkaaga, kana shaqayso wanaagga iyo barwaaqada dalka. Waxay sii raacisay, waxaad aragtay in taajka aan siiyey ninkii faqiirka ahaa uu Ilaahay noogu beddelay laba boqortooyo oo isku darsamay. Khayr haddaad samayso, Ilaahay ayaa kuu laba jibaari doona. Boqorkii wuxuu si cad ugu dhaartay dadkii maxkamadda joogay hortooda, laga bilaabo maanta, qofna dulmi uma geysan doono. Asxaabta qiimaha badan, sheekadana waxay xambaarsan tahay casharo qoto dheer oo ku saabsan toobada, cadaaladda, naxariista, iyo abaalka samafalka. Haddaad sheekadan ka heshay, like inoo saar muuqaalka, oo ha hilmaamin inaad subscribe garayso kanaalka. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.